taliyaha jananka ciidanka booliska Somaliland Maxamed Saqadi Dubad ayaa maanta soo gaaray magaalada Laascaanood wuxuuna kulamo saacado badan qaatay la yeeshay saraakiisha ciidamada booliska iyo maamulka gobolka. taliyaha ayaa markii ay dhamaadeen shirarka uu la lahaa mas'uuliyiintaasi ay noo soo gashay inaan wax ka weydiino socdaalkiisa. wuxuuna sheegay inuu kormeerayay sida ay u socdaan hawlaha ciidanka booliska ay ka wadaan magaalada Laascaanood isagoo sheegay inay wax weyn ka qaban doonaan xaaladda amni ee gobolka. markii dambe waxaan xalay qaybay oo ay ku jirto halkani iimo cusbaan la saamo inta ka yar ayaa joogay oo ka shaqeynayay maantana waxaan iyo kormeer saashiga muddo intii aan shaqada dambe ilaana u gurgalo wax dhibaato ka taagan waayo soo socdo ayaamahan dambe dil baa soo kordhayay inaan bal oo gurgalo arrinta baaro ka oo maartaa oo bixin aan ka qaatay madaxda iyo si loo wax looga qaban lahaa tala way arrintan maanta oobi waxaan rajaynayaa inaan ku soo noqdo mudaan fogeyn tala. taliyaha ayaa isla maanta dib uga amabaxay magaalada Laascaanood wuxuuna sheegay inuu ku soo noqon doono isagoo ka codsaday bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood inay la shaqeeyaan ciidanka booliska si markaas loo sugo xaaladda amni. waa dad wanaagsan danahooda u soo jeeda marna way kacday magaalada si fiican bay dhaqaale soo kacay markii la sameeyay reer bolka la sameeyay cashuura aad iyo aad mid wariba kii maqnaa way kii jooganay diila ka shay inaysa gaar u qabsanayay arrimahan iyo buuqani waxaan la dilayana waxa ka dambeeyay dad khaas oo iyagu ila jidare iyagana anagoo ku wada kasta boqolaal baalka jooga iyo inteeda aan magaalada ka shaqeynay dawladda ka wala soconaa gacan biraana lagu qabanaya waa in bal qasbay lagu tajiyo magaalada nabadgelyadeeda dadkan aan diyaarka u ahaynay muwaadiniinta waqtiga lagu manayana inaan isbarbar taagno aan u xaqiijino in dawlad jirto ciidan booliis la helo jiro aan geeska soo weysasno ilaa nabad aslaha ka timaado. Cabdiraxmaan Ali Ducaale, Home Cable TV, Laascaanood.